gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane Maxamuud Macal Cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee hay'adda maareynta kulan kula qaatay wafdi sare oo ka socday hay'adda horumarinta caalamiga ee Swedish International Development Agency oo loo soo gaabiyo SED horena dhismaha casriga ah ee xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee New York ka saaciiday dhismaheeda dowladda federaalka Soomaaliya. wafdigan waxaa hogaaminaya madaxa hay'adda horumarinta caalamiga ee Sweden ee Soomaaliya Anna Slen waxaana soo dhaweyn kadib kulan ay la qaateen gudoomiye Maxamuud Macal Cabdulle iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adda maareynta iyagoo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay dalka arrimaha la xiriira howlaha bini'aadanimo gurmadka degdega ah abaaraha iyadoo mas'uuliyiinta dhankooda ballan qaadeen in hay'adda ay ka taageeri doonaan qalabaynta xarunta qaran ee gurmadka degdega ah. kulanka kadib mas'uuliyiinta ayaa si wadajir ah u kormeeray qaybaha kala duwan ee xarunta dhexe ee hay'adda maareynta waxaana intaasi kadib gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo mas'uuliyiintan booqasho ku tageen xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee New York oo bilooyin ka hor xariga laga jaray iyo kormeer ay ku sameeyeen kadib halkaasi ka sameeyay dhirbeeris. gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane Maxamuud Macal Cabdulle ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka warbixiyay kulanka uu maanta la qaatay mas'uuliyiintan sare ee ka socday hay'adda horumarinta caalamiga ee Sweden. waxaan u mahad celinayaa wafdiga oo ay hogaaminayso Anna oo runtii ah sida oo buildingkan runtii noo dhistay quruxda badan oo aan ahayn in kaliya ay buildingka noo dhistay runtii inay dowladda Sweden iyo shacabka Sweden oo runtii markasta dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya garab taagan waxaan rabnaa maanta halka anagu mahad celino hawshan adag ay qabteen hawsha buildingan lagu qabanayo waxay tahay waa building loogu talagalay in emergency-ga looga jawaabo waxa ogtiin dalkeena in emergency badan ay ka jiraan oo runtii aan la soo koobi karin waxayna hadda ka bacdi diyaar u noqonaysaa buildingkan oo lagu shaqayn doono arrimahaas runtii nooga mahari doonaan buildingka qalabayntiisa iyo wixii looga baahan yahay aad iyo aad u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxay maanta runtii nala sameeyeen discussion dheer oo galna ka bacdi inay naga caawin doonaan arrimaha oo cimilada iyo abaaraha iyo arrimahaas oo runtii waa arkayseen inaan tallaanla geed loogu talagala runtii in cimiladu ay waxa ogtiina waa green u baahan tahay aad iyo aad u mahadsantihiin sharaf iyo karaamina noo tahay aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa shaqada adag ood qabateen thank you. madaxa hay'adda horumarinta caalamiga ee Sweden ee Soomaaliya Anna Slen ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageeraan arrimaha gurmadka degdega ah xarunta qaran ee gurmadka degdega ah oo iyaga ay dhiseen ay ka saaciidi doonaan hay'adda maareynta qalabaynteeda. On behalf of the Swedish government, I'm very happy to be here today to see the completion of this building that is just a part of our ongoing support to the Somali government in their endeavor to strengthen emergency preparedness and emergency response. So we're very pleased to see that the building has been completed and that you are